qoraal ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir laguna socodsiiyay bangiga dhexe ee dalka iyo wasaaradda maaliyadda laguna wargeliyay hanti dhowraha guud iyo xisaabiyaha guud ee dalka ayaa lagu amray in aan qasnada dawladda laga bixin karin lacagta Imaaraadka Carabta looga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kaasi oo cadadeeda lagu sheegay 9 milyan iyo 600 oo kun oo dollar. lacagtaasi ayay maxkamaddu sheegtay in dalka ay ku soo gashay sifo aan waafaqsanayn sharciga sidaa darteedna ay mamnuuc tahay in la bixiyo. amarka ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in ay ku soo saareen xayiraadda lacagta kadib markii warqad kaga timid xafiiska xirlaaliyaha guud ee dalka kaas oo lagu dalbanayay joojinta lacagtaasi. qoraalka maxkamadda ayaa la raaciyay in lacagtaasi kaliya la bixin karo inta laga soo dhameynayo baaritaanka iyo ka go'aan gaarista kiiska lacagtaasi oo la tilmaamay in ay hortaalo xafiiska xirlaaliyaha guud ee dalka. horey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu amar uga soo saaray lacagtan Imaaraadka Carabta laga qabtay sanadkii 2018 isagoo dhawaan faray gudoomiyaha bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda in lacagtaasi aan laga bixin karin qasnada dawladda ilaa baaritaanka laga soo dhameystirayo. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu u cuskaday xayiraadda lacagtaasi go'aan uu qaatay hal mas'uul kaasi oo uu ku tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah. wixii ku soo kordhaa amarka maxkamadda iyo sidoo kale lacagtan la isku haysto ee Imaaraadka Carabta laga qabtay wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan insha Allah. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi ballaaran oo uu horkacayo ayaa u ambabaxay magaalada Abu Dhabi ee caasimadda waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Rooble ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ka sii sagootiyay ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo xubno kale oo ka tirsan gulihiisa wasiirada. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in safarka Rooble uu la xiriiro xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal. sidoo kale qoraalka ayaa intaasi ku sii daraya in ra'iisul wasaaraha inta uu joogo Imaaraadka uu kulamo gaar ah la qaadan doono madaxda sare ee dalkaasi. safarka Rooble ayaa ku soo aadayo xilli xasaasi ah isla markaana ay haatan ishayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dawladdiisu xiriirka u jartay Imaaraadka Carabta isagoo dhinaca kale garab ka helay Qatar. arrimahan oo idil ayaa ku soo aadaya iyada oo dhawaan ra'iisul wasaare Rooble uu raaligelin siiyay dawladda Imaaraadka Carabta taasi oo la xiriirta lacagtii 2018 looga qabtay garoonka Aadan Cadde isaga oo u ballan qaaday in dib loogu celin doono waxayna tallaabadaasi dhabaha u xartay dib u soo nooleynta xiriirka Muqdisho iyo Abu Dhabi. si kastaba Imaaraadka ayaa haatan doonaya inuu isku fidiyo siyaasad ahaan geeska Afrika iyo Badda Cas waxaana shalay Abu Dhabi tagay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed halka uu maalmo ka sii horna uu tagay madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi. haddaba waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa xogta 7 qodob oo ay tahay ama uu doonayo Rooble inuu kala hadlo xukuumadda Abu Dhabi. 1. fududeynta ganacsiga iyo fiisaha. 4 sano ee la soo dhaafay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa culays kala kulmay Imaaraadka oo marin muhiim u ahaa ganacsiga fiisayaasha iyo sidoo kale tashiilaadkii kale ayaa meesha ka baxay oo adkaaday waxaana la joogaa in Rooble uu safarkan uga faa'iideysto arintaasi uuna kala hadlo madaxda dalkaasi sidii Imaaraadka ay albaabada ugu furi lahaayeen ganacsatada. 2. Soomaaliya waxa ay Imaaraadku u dhoofin jirtay xoolo, dahab iyo alaabo kale oo qiimo badan oo ku kacayay ilaa 200 milyan oo dollar sanadkii. Rooble waa inuu safarkan kala hadlo Imaaraadka sidii ganacsatada ay suuqyo cusub uga heli lahaayeen Imaaraadka. 3. tababarka ciidanka. Imaaraadka waxay joojiyeen tababar ay siin jireen ciidamada ku sugan Banaadir iyaga oo horay u tababaray ciidamo ka badan 2407 oo lagu daray ilaa 2000 oo Puntland ah una bixin jiray waliba mushaarkooda. 4. taageerada caafimaad. Imaaraadka waxay xireen Abriil 16keedii sanadkii 2018 isbitaalka Sheekh Zayed ee Muqdisho waxaana si lacag la'aan ah maalin walba loogu daweyn jiray 200 ilaa 300 oo ah bukaano waxaana ka howlgeli jiray 40 qof oo Soomaali ah 14 ka midana ay ahaayeen dhaqaatiir leh takhasusaad kala duwan. Rooble waa inuu kala hadlo Imaaraadka soo celinta howlahaas muhiimka u ah dadka.
5 kabka miisaaniyadda. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay qayb ka ahaayeen dalalka kaba miisaaniyadda Soomaaliya iyaga oo sidoo kale taageeri jiray dhismaha maamulada. Rooble waa inuu safarkan uga faa'iideysto soo celinta kabka miisaaniyadda dalka. 6 wax ka qabashada abaaraha. Imaaraadka waxa ay xilligan Soomaaliya ka taageeri kartaa wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyadoo dhawaan xukuumadda Rooble ku wareejisay gargaar. 7 maalgashiga. Imaaraadka waxa ay maalgashi ku samaysataa maamulada sida Somaliland iyo Puntland iyadoo casriyeynayso dekada Berbera oo ku baxay 442 milyan muddo 30 sano ah halka 30 sano kalena ay dekada Boosaaso ku bixinayso 336 milyan. waxaana la joogaa in Rooble uu Imaaraadka kala hadlo in Imaaraadka sida Turkiga oo kale ay toos ugu yimaadaan Muqdisho taas oo albaabka u furi karta dalalka kale ee qaliijka.